waxaad ku jiraysaa halgan dhammaystiran bilowga ilaa dhammaadka noloshaada waxaana la dhibtoonaysaa la dagaalanka saddexdan cadow ee lidiga ku badbaadadaada rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegay inay jiraan saddex cadow oo qofka bini'aadanka jidka xaqa ah iyo jannada ka hortaagan oo xumaanta u fududaynaya cadowga koowaad waa shaydaanku waa cadow taariikhi oo bini'aadanku leeyahay ilaahay wuxuu yidhi shaydaanku cadowgu idiin yahay cadow ka dhigta cadowga labaad ee shaydaanka la saaxiibka ah waa naftaada waa midda adiga kugu jirta ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay inna nafsa la amaaratun bisuu naftu waa mid xumaan kugu hagaysa sababtoo shahawaadkaaga markaad raacdid iyo waxa iyadu jeceshahay waxaad noqonaysaa mid jidka xaqa ah ka leexanaya cadowga saddexaad waa adduunyadan aan ku guda jirro haddii dooqaaga koowaad uu noqdo inaad adduunyadan ku mashquusho oo aad aakhirada ilowdo waxaad noqonaysaa mid hallowsan oo jidka xaqa ah ka leexday ilaah subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay wardadow ilaahay yobohiisu waa dhab ee adduunyadu yaana idinkadin oo idin mashquulin haddaba waxaa laydinka doonayaa afartaa cadow inaan ka digtoonaanno asxaabtaada kale sii gaadhsiin si ay ajarka inoola qaybsadaan bishaaro waxaa loogu bishaaraynayaa dhammaan bulshooyinta Soomaaliyeed ee daafaha caalamka joogta in markaska Al-Hidaaya Islamic Center uu diiwaan gelin doono arday cusub markaskan ayaa waxa uu bixiyaa duruus ay ka mid tahay aasaaska diinta Islaamka sida higaada Qur'aanka oo hab tajwiida loo barayo caqiidada barashada farteena Soomaaliga ee dhaqanka iyo in waliba salaada laga saxo iyo waxyaalaha caqiidada ku tacalluqa hadaba haddii aad u baahan tahay waxaad nagala soo xiriiri kartaa lambarkan aan kuu sheegayo +2529054445550 aad baa u mahadsantahay